وصحبه وسلم runtii shirkani waxa weeyaan shir bilo ah aynu bishiiba mar qabsano aynu ku kala xog qaadano xagga amniga marayo iyo xagga dhalinyaradii caruurtii yareed marayso inta dambiyaal gashay inta laga sii daayay inta maxay ahayd dhaawacyo badan geysatay ee loo gudbinayo maxkamadda waxyaabahaas aynu ku gurfaynaa iyo sidii looga hortagi lahaa maxay ahayd dambiyada caruurtu galayaan iyo sidii loo cirib tiri lahaa dambiyada caruurtu galayaan runtii waxa weeyaan muxuu ahaa dawladdu waxa uu sameysay caruurta dhowr meelood ba uu sameysay meel waad ogtiino waa maxamed mooge meelna waad ogtiino waa tan in ka soo horjeeda WHO ee weyn meedna waa waa xagga dusha sare waxa weeyaan caruurta halkaa lagu hayaa qaar waxa weeyaan caruur yar oo ka yar 5 jirka adigu ka yar baa maxay ahayd ilaa maxay ahayd 7 jirka waxa jira qaar kuwa ka sii waaweyn qaar jaamacadaha imika ka baxaya jira qaar jaamacadaha dhigtaa jira qaar dugsiyada sare ku jira moogta kolka waxa weeyaan meeshan markay waa laba meelood halkani meel hablaha yaryara iyo meel dhalinyarada ayaa waxa la sameeyay meesha weyn ee maxamed mooge kolka waxa weeyaan caruurtii ilaan meel laguma xidhina way soo baxayaan iyo caruurteena kalaba gaari meel yaala laga yaabaa inay jabiyaan ruuxi qabsado dabad kuwa waa laga bixiyaa waxa weeyaan dawladdu waxay isku xil saartay horta jeelashan sidii dadka looga leexin lahaa waxa la sameeyay kolka in xafiisyo yaryar oo maxay ahayd dadka xaafadda degan loo idmaday oo maxay ahayd access to the justice xeerbeegtideena iyo kale ma garanaysaa iyo dadkii heshiisiin jiray reeraha isku dhaco oo kale weeyaan kolka halkaasay ku eegaan dadka wixii deyn isku leh wixii islaayay reerihii buu ka taagan yahay sababaha keenay kolka halkaasay ku xalliyaan wixii kolka intaa dhaafsiisan ayaga looyaraa la siiyaa maxkamadda loo soo gudbiyaa looyaro bilaasha runtii dadka danyartaa waxaanu siinaa maxay ahayd looyaro bilaasha oo u dooda oo xaqooda raadiya si aan calankan hoostiisa aan ruuxnaba loogu dulmin waxa weeyaan oo kale maxay ahayd in dadka waxa jira dumarku inta badan way xishoodaan waxyaabo badan oo ninka u sheegi karin baa jira moogta maxkamadahana way ka sariigtaano ma tagaan kolka xaafadaha looga sameeyay xafiisyo yaryar oo maxay ahayd arrinkooda lagu eego dumarkii xalinayay waa kuwan kolka halkaa dumarkaa waraysta oo hoos u waraysta ninkii baa loo yeedhaa arrinkii baa xerbeegti gashaa arrinkaa family problem miskana halkaasaa lagu xaliyaa wixii kale deymaa iyo wixii arrin kalena waa la isla eegaa waa la soo gudbiyaa waxaanu leenahay qayb kale oo dadka jeelasha ku jira deynta ka bixisa waxa jira dad muxsiniina oo amba dibadda ha joogaan amba maxay dalka gudihiisa ha joogaane ka bixiya bisha Ramadaan dadka wixii deynay lagu leeyahay kolka waxa weeyaan muxuu ahaa aad bay dawladdu u dadaalaysaa si dadkii aan loogu cadib waxa jiri jiray barigii hore ruux wax yar qaata laga yaabaa inuu muddo badan ku jiro markuu kiiskiisa dhamaaday iminka kuwa waa laga hortagay oo waatan lacagtaba laga dhiibayo kolka waxaanu jecel lahay iminka waxaynu is weydiinay su'aalo badan intii aynaan barnaamijka furan iminka idinka ka mas'uula kolka maxay ahayd intii idinkaga soo qaybtay idinka ka mas'uula leena ruux walow kasto waddankeena jooga qayb uu mas'uul ka yahay qaybta uu mas'uulka ka yahay sixilkasnimo waa inuu uga soo baxa iska xil saara ilaaliya leena waxa weeyaan dumad leena saaray weeyaan meesha waa laga tagayaa waxaanu tagaynaa meel kelida aad oo madow oo maxay ahayd wixii adduunka guudkiisa aad ka goosatay una la tagaysay xabaashaada 3 baa ku raacaya
camalkaagaa kuu raacaya awlaadaadaa kuu raacaysa xoolahaagaa kuu raacaya kolkaa waxa weeye laba way kaa soo noqonayaan tolkaaga iyo xoolahaagu way kaa soo noqonayaan waxa ku raacayo quri waa camalkaaga kolkaa waxa weeyaan kullukum mas'uul wa kullu mas'uulun mas'uulun can raciyatihi buu nabigeenu yidhi gebigiinu waxaad tihiin dad mas-uuliyiina nin weliba mas-uul wuxuu ka yahay wixii uu raaco kolkaa idinku si hagar la-aana markaad u shaqaysaan ajar baydu ka helaysaan leino ilmo yaroo xabsi ka leexin lagu sameeyey ilmo yaroo maxay ahayd la wacdiyey reer burburi lahaayoo aada hagaajiseen oo aydu dhex gasheen yacni askariga oo dee u naxariistan nin jeelka ku jira oo hadduu buko dee xaqiisa mariya haddii uu wax kale ka tabanayo uu xaqiisa siiyaa haddii lasoo siyaarinayo xaqiisa siiyaa waxa weeyaan jeelashu maaha meel la isku cadibo waxa weeyaan waa dhaqan celin ruuxii lagu dhaqan celinayo waa meel wixii uu galay lagaga bixinayo waa meel uu daryeel ka helayo waa meel uu u baahan yahay ruux kasta oo dibadda joogaa inuu ka warhayo waxaa jira dad ku xidhan dembiyaal fara badan oo sanado fara badan ku xidhan kolkaa kuwaasoo kale waxaa loo baahan yahay dadka dibadda joogay xorriyadda haystaa inay dee macawiso iyo dhar iyo u geeyaanoo dumarku hablaha ka warhayaanoo ay dee duruuc iyo toobab iyo googorada iyo dee wixii ila waa sadaqa ruux waliba wuxuu karayo uu sadaqadaysto dadkana waxaa jeelka lagaga leexinayaa maaha waxa weeyaan mid qurun baa lagaga leexinayaa waa iyadoo diinta la baro iyadoo kelmaddan aynu qaadanay laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah waa kelimatu tawxiide aynu baro dadka oo aynu ogaano ilaahay muxuu xaq inoogu leeyahay maxaynu asagana xaq ugu leenahay ilaahay wuxuu xaq inoogu leeyahay inaynu caabudno iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inaguna isticaanaynu xaq ugu leenahay bal hadeeg waxa weeyaan muxuu ahaa isaga inaynu caabudnaynu xaq inoogu leeyahay inaynu ilaahay u barax tiro cibaadadiisa ayuu xaq laynoogu leeyahay leanna waxaynu diidnay inay ilaahyo kale jiraan laa ilaaha ila allah waxaynu nidhi ilaahyo kaleba ma jiraanba waxa weeyaan ilaahba ma jiro markaad tidhaahdo waxa weeyaan dee gaalada qaar baan ilaahba ogolayn laakiin inagu waynu ka soo hadhnayoo waxaynu nidhi ila allah allah waa kelmat aljalaala waa kelmad weyn oo aynu ilaahay ku weynaynayno waa kelmad aynu ilaahay ku sharfayno waxa weeyaan ilaahay baa inaga ina abuuray isagaa raasiqa oo ina arsaaqa kolkaa waxa weeyaan markaynu cibaadaysanayno inaynu cibaadada ilaahay u barax tiro inaynu carruurteenna diinta barro oynu barro waxa aan waalidku yahay arkaanalislaamka barro arkaanaliimaanka barro arkaanalixsaanka barro nebi jibriil baa malak jibriil baa u yimi nebigoo asxaabta la fadhiya markaasuu jilbaha u saaray markaasuu yidhi kam arkaanalislaam hadeeg arkaanislaamku waa imisa waad wada taqaanin baan malanayaa waa 5 waa shahaadadana ugu horeysa shahaadadiyo aynu ku qaadanayno can dariiqa maxamed ilaa asaga laynoogu soo dhiibay waa cabdullah waxa weeyaan waa addoonkii ilaahay nabiga laftigiisa laynaga rabaa intaa ilaahay u ogolaaday ee addoonnimada ah inaynu ku sinno oo aynaan dee ilaahay barbar dhigin oo inaan asaga ku tawasulin oo inaan asaga baryin aynu ogaanaa in laynoogu soo dhiibay risaaladda oo risaaladayna soo gaadhsiinayuu nabigeennii yahay oo wixii laynoogu soo dhiibay malaka jibriil inoo soo dhiibay iyo ilaahay asaga dee laynoo soo mariyey kolkaa asaga laftigiisa inaynu qalwi ku samayno aynu dee xadkiisa dhaafino taa laftigeeda waa inu iska ilaalinaa salaadda waa inaynu tukannaa aynu ilaalinaa maxaa ahayd salaaddu waa wax quran la iska daynayn waxa laga yaabaa soonka in lagaa daayo waxa laga yaabaa sakada in lagaa daayo waxa laga yaabaa xajka in lagaa daayo waxa lagaaga daynayaa waxa weeye uma kaana minkum mariidan ow calaa safarin faciddatuhu min ayaamin ukhra baa layidhi ninkiina safar ku jiro waa laga daayey maalin dambaana lagugu dhigay bal hadeeg hadda xajka man istidaaca ilayhi sabiila baa layna yidhi dee sakadana nimaan waxbaba hayni dee ma bixinayaba laakiin marnaba salaada lagaama dayn maxaa lagaaga dayn waaye waa sila bayn alcabdi wa rabbo waxa weeyaan xidhiirhka u dhaxeeya ilaahay iyo addoonkiisa bal hadeeg oo kolkaa markaad wax u baahan tahay idaa tas'al is'al illaah haddaad wax u baahan tahay oo doonayso inaad wax weydiisato cid ilaahay weydiiso wa idaa tastacin
haddaad kaalmo kala doonayso astacin billaah ilaahay kaalmo weydiiso bal haddee waxa ku mashquulin ibni aadan waxba ma hayo idaa sa'alaka cabdi canii fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaani buu ilaahay yidhi haddii ruux waxay weydiisto waxa weeyaan ruux waan u dhowahay waana ka aqbalaya wuxuu weydiistay wuxuu yidhi ilaahay adcuuni astajib lakum barya aan idinka aqbale bal haddee meel fog ba ha ka doonin wax walba 2 ragcadood baa kaa xigo oo tukato bal haddee hadda kolkaa waxa laynaga doonayaa salaat alkhushuuc walkhuduuc inaynu inagu markaynu ilaahay hortaagno aynu ogaano ciddaynu hortaagana cidday tahay bal haddee hadda waxa weeyaan muxuu ahaa arkaan alixsaanka weeye acbud allah ilaahay u caabud kaannaka taraahu inaad arkayso fain lam takun taraahu haddaanad arkayn fainahu yaraaka asagaa ku arkaya ilaahay waxa laynaga baahan yahay salaata daat alkhushuuc walkhuduuc caruurteenna kolkaa diinta waa inaynu barnaa bal haddee kolkaa malakul jibriil wuxuu weydiiyey arkaan aliimaanka iyo arkaan alixsaanka intaana waydu garanaysaan wakhtigaana idu soo gaabinaya kolkaa waxa weeye haddaynu inagu caruurteenna barro diinta iyo xaqu ilaahay ku leeyihi xaqa jaarku ku leeyihi xaqa dadku ku leeyihiin dee intaasaaba ugu filan maxay ahayd in xabsi ka leecin aynu diinteenna u soo noqonno oynu ilaahay u soo noqonno oynu ilaahay si dhaba u caabudno oo ilaahay aynu cibaadada u barax tiro oo sheekhyada iyo maxay ahayd khuraafaadka iyo ciddan kale aynu ku tawasulayno aynu iska dayno leanna waa addoon adigoo kale ah wax allaaliya wuxuu anfacaya hadday jirto dee asagaasa ficilaayo muu dhinteenba bal haddee meliga soo maad arag almaalik waxa weeyaan cidda wax walba leh meligna waxa weeyaan iminka boqorradii carabtoo dhami dee waa kuwii dhintay melig huwa aladii yamliku nafsu weeye ilaah maxaa ruuxa boqorkii waa ruuxa naftiisa hanta huwa alawal waalaakhir waaldaahir meeshanoo dhan waa laga tegaya bal haddee ilaahay unbaa baaqi noqonaya kolkaa waxaa loo baahan yahay dee ilaaha baaqiga ah ee kelida ah inaynu caabudno caruurtana baro taasaa xabsi ka leexina taasaa xumaan ka leexina taasaynu ilaahay ugu dhowaanaynaa taasaynu ku baraynaa xaqa lagugu leeyahay ee dadku kugu leeyihiin ee jaarku kugu leeyihiin ay dowladdu kugu leedahay ee naftaada ay lagugu leeyahay naftaadu maxay ahayd dulmku waa 3 waxa weeyaan mid waa shirkiga waa mid aan la iskaba dhaafin kaasi bal haddee in allaha laa yakfiru an yushrika bih wayakfuru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ruuxa ku kufriya kama dhaafo dembiga midna waa daalim linafsiyo waa markaad adigu naftaada dulunto ee aad dee xumaan samayso midna waxa weeyaan dulum liqayru waa markaad qayrkaa amba xoog kaga qaado xoolo amba aad xamato amba aad cirdigiisa meel kaga dhacdo saddexaasuu dulmku u qaybsamaa saddexdaba ilaahay haynaga ilaaliyo isma ilaalin karee ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay kuwii diinta si dhaba u qabsaday inuu ilaahay naga dhigo allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqa walcafaafa walqinaa allahuma inaa nas'aluka iimaanan daa'iman wayaqiinan saadiqan waqalba khaashican walisaanan daakiran allahuma inaa nas'aluka aljannata wanaciimihaa wamaa yuqribunaa ilayha min qowlin aw camalin aw ficlin wanacuudu bika min khadatika wannaar وما يقربنا إليها من قول أو عمل أو فعل وصلى الله على سيدنا نبينا وصحبه وسلم قولي يقب النمو وذا الشقين في عن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.